kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa qaliiji waa cashiradeenii ku saabsanaa Dodge for Anfänger jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa weli heerka koowaad ee luqadda ee A1 daawasho wacan hore waxaa u soo qaadanay sida u shaqeynayaan pronominka oo ah magacyada iyo nominka oo ah magacyada haddii aadan soo daawanin waxaa qasab ah inaad soo daawatid maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay verben oo ah ficilada sida ay u shaqeynayaan ficilada jarmalka maxaa ficil ah gehen is ficil kommen is ficil anfahren is ficil ankommen is ficil waa waxaas oo dhan waxa waaye ficilo sida u shaqeeyaan markaas sidee u kala saaran yihiin waxa u kala qaadnay afar qeybood oo cagsi isku ah marka koowaad waxa soo qaadanaynaa wax la yiraahdo ishfaq verben oo ah verbka daciifka ah oo ingiriiska lagu dhaho regular verb iyo stark verben oo ah ficilada adag oo lagu dhaho af ingiriiska irregular verben iyo sidoo kale tood nicht trennbare verb verbka aanan kala go'in iyo trennbare verben verbka kala go'a markii ay sentences isku jiraan marka maxay kala yihiin dhammaantooda waxa u kala qaadan laba qeybood qeybta koowaad aan soo qaadanaa marka horetood ishfaq verben verbka daciifka ah iyo stark verben iyo verbka adag ishfaqa iyo stark verbenka haddii aan laba qeybood u kala saarno waa iska soo horjeedinaa si aad si fudud ugu fahantid ishfaq verben waxaan ku dhahnay waa verbka daciifka ah daciifka maxaa lagu jeedaa macnaheeda hore waxaa kugu soo sheegay markii pronounka ku jirna in maxaa ku dhaha verbka markaad soo qaadatid ficilka aad soo qaadatid in asalka ficilka uu yahay lan in en mar walba u dambeysa asalka ficilka markii uu yahay laakiin markii aad rabtid ishfaq verb inaad isticmaashid verbka sida fudud loo dhisay waxaa qaadanaysaa mar walba ish haddii aad isticmaalaysid nooc gooni u dhisan yahay haddii aad du isticmaalaysid nooc gooni u dhisan yahay cs daa isticmaalaysid nooc kaleetoo gooni u dhisan yahay via haddaa isticmaalaysid nooc kaloo gooni u dhisan yahay iyo taasna mid ah marka ish lana aniga waxaa baranaya oo markii ish qaadanaysid ereyga caadiga ah laanta oo ah barashada caadiga ah ma soo qaadanaysid oo enta waa ka tagaysaa keliya waxaa soo qaadanaysaa e du adiga lans waxaa baranaysaa oo ma u baahan inaad e enta soo qaadatid e enta iska tuuraysaa waxaa gelinaysaa bis st asiga c ayada s shayga lent waxay baranayaan tiya soo gelinaysa e enta waa iska tuuraysaa via anaga lan waxaa baranaynaa e enta caadigaa soo qaadanaysaa asalka ereyga soo yaha soo qaadanaysaa markaa via isticmaalaysid oo ah anaga iyo idinka lent waxaa baranaysiin sidoo kaleetood waxaa soo qaadanaysaa tida e enta ka tagaysaa c lan ayaga way baranayaan oo ayagana sidoo kaleetood markii ayaga isticmaalaysid oo c ah e enta soo qaadanaysaa oo waxba kama bedelaysa ereyga sida caadiga oo yahay marka meeshan waxaa kaga soo baxa haddii erey walba oo ishfaq ah aragtid noocoo doona ha u dhisnaado markaa ish isticmaalaysid e unba ugu dambarsiinaysaa ishgee ishqaybe mar walba isbedel gooni ah kuma imaanay oo waxaa isbedelaya ayaga keliya ereyada u dambeeya ee dhammaanta laakiin ishtaak verbka adag sababta loo dhaho qabaa uu ka yara duwan yahay kuwan kaleeto verbka dhanaa laga yaabaa inuu si kale isku yara bedelo ficilkoo dhanaa laga yaabaa inuu si kale isku yara bedelo oo sidee ku qaadi kartaa tusaale-aan waxaa soo qaadanaynaa faaqan oo ah wadid gaariga markaa wadaysid ama markii aad meel gaari ku aadaysid marka ugu horeyso ish faaqa caadi usoo qaatay enta iska tuuray idibisa soo qaatay laakiin duuda markaa qaadanaysid oo ah adiga way ka yara duwan tahay oo meeshii aadii caadiga ahayd oo aad caadiga faaqan aad ahayd uu ka bedelay wuxuu ku bedelay wax lagu dhaho umlaut baa lagu dhahaa aadan oo aadaa labada dhibcood kor kale soo qaato oo hadhow marka dhawaaqii ereyga wuu isbedelaya qoraal ahaanna wuu isbedelaya caadi ahaan ishfaaqa du first marka fast ma dhehaysid waxaa leedahay first oo waxaa isbedelayso aada dhawaaqeedana way isbedelayaan rcs fat waxa waaye asiga ayada iyo shayga way wadayaan via faaqan aniga oo soconaa viada caadiga kusoo laabanaysaa iyo caadiga kusoo qaadanaysaa si faaqan ayadana sida caadiga kusoo laabanaysaa laakiin qaybta ugu muhiimsan waxaa tahay duuda oo ah adiga iyo rcs oo ah asiga ayada iyo shayga
inta badan waxay isku bedelaan ereyga labadaas qaybood isku bedelaan waa inaa marka ka taxadirtaa marka sida aad du ugu isticmaalaysid inuu ereyga ishtaaq verb yahay iyo inuu ishfaaq verb yahay inaa marka hore u fiirsatid ma jiro nidaam gooni ah oo lagu raaco oo ku ogaanaysid inuu ereygan ishtaaq yahay inuu ishfaaq yahay kaliya waxaa lagu bartaa sida ereyga u yahay si aan marka si fiican ugu sii sharaxno inta badan ishfaaq verbka isbedel gooni ah malahan kaliya waxaa baranaysaa in ish iyo u dambaysiinaysid du st u dambaysiinaysid acs u dambaysiinaysid en kan formulaas mar walba xisanaysa asiga ku soconaysaa mar walba laakiin kan waxaa jirto qaabab gooni ah oo xoogaa lagu yara dhaweeyo oo lagu ogaado in oo ishtaaq yahay ereyga iyo in maxaa ku dhahaa duudi iyo aada ah ka bedelaysid iyo inaad sidiis ku dhaafaysid xoogaa tusaalooyinkaa soo qaadanay si aad si fiican ugu sii fahantid ishtaaq verbka adag oo ay ka mid yihiin zum beispiel tusaale ahaan haddii ereyga oo a ku jiro bilowgiisa hore adaas waxay isku bedelaysaa ee umlaut ada labada dhibac la isku bedelaysaa oo hadhow waxaa bedelmayo dhawaaqa ereyga waxa kaleetoodo bedelmayo qoraalka ereygana wuu bedelmayo tusaale ahaan braten oo ah shiilid inaa wax shiishid ish brate waa shiilaya aniga du bretst adiga waa shiilaysaa marka aadi caadiga ah du aadi laba dhibcood kor ka qaadatay labada dhibcood sababtay u qaadatay waxay tahay aadan inta ah mar walba waxay isku bedelaysaa ayada laba dhibcood kor ku leh oo ah aadi inta labada dhibcood ku leh faaqan hadday aan soo qaadanay oo wadid ah ish faaqe aniga waa wadaya du fast adiga waa wadaysaa aadi way isbedeshay oo aadi meeshaan ahaa waxay isku bedeshay laba dhibcood kor ku leh haltan oo kale ka mid ah markii aad wax celinaysid aad joogaysid ish halte waa xanaaneynaya aniga du health adiga waa xanaaneynaysaa haadi marka aadi laba dhibcood isku bedeshay ishlaafin oo kale ka mid ah oo hurdada ah ishlaafi aniga waa hurdaya du schläfst adiga waa hurdaysaa aadi waxay isku bedeshay laba dhibcood kor ku leh traagna ka mid ah oo inaa wax kor u qaadid ah ama axmaashid ama ina aad dhar gashatid oo kaleetoodo kale oo ah ish traage aniga waxaa qaadaya ama waxaa gashanaya du trägst adiga waxaa qaadaysaa vashna ka mid ah oo dhaqida ishvaashe aniga waa dhaqaya du wäschst adiga waa dhaqaysaa aadi mar walba isbedelaysaa marka formulahan mar walba ku anfacaya haddii ereyga isticmaal ereyga aragtid oo ku jiro in aadiisa aysan tahay waxa ku tila inaad isla markiiba u bedeshid umlaut oo kaliya qaybta duuda ka bedeshid iyo aad ka bedeshid inta kale tot systemka caadiga ahaad oo kii kale usoo qaadatay oo kusoo qaadanaysaa meel walba aada ku aragtid waxay hadhow isku bedelaysaa tusaale ahaan essen oo ah cunida ama cuntid way ka bilaabmato ish esse aniga waa cunaya du ist aadii caadiga ah ka bilaabmaysa automatic waxay isku bedeshay isku bedeshay oo waxay noqotay ist ayadaasi qaad geben oo kale ka mid ah oo ku jirta meeshaan geben waxaa lahaa siin ish gebe waa siinaya du gibst waa siinaysaa adiga waa siinaysaa marka aadii waxay isku bedeshay meeshaan helfen oo kale ka mid ah oo caawinada ah ish helfe aniga waa caawinaya meeshaan ku jirto ida caadigaa soo qaadan laakiin markaad du isticmaalaysa du hilfst ida qaadanaysaa meeshaan adiga waa caawinaysaa oo aad ma soo galaysa meeshaan nehmin oo kale ka mid ah oo markaa wax qaadanaysid ah ish nehme aniga waa qaadanaya du nimmst ayaa soo galaysa meeshaan ich spreche aniga waa hadlaya oo hadlida ah inaan luqad ich spreche auf Deutsch German ku hadlaya oo aadi caadiga ahayd oo ku jirtaa meeshaan laakiin hadhow du sprichst ay noqonaysaa aadi waxaa soo galayso dhawaaq ahaan iyo qoraal ahaan way isbedelaysaa trefna la mid ah oo qofka aad la kulmaysid ku jirto meeshaan ich treffe aniga waa la kulmaya du triffst adiga waa la kulmaysaa oo waxay isku bedelaysaa marka ka taxadir inta badan way isku qaldaan dhalinyarada inta badan meel walba waxay u malaan systemka caadiga ahayd oo inuu ishfaaq verbka caadiga ah ku qaldaa mar walba laakiin ka taxadir haddii erey ku aragtid inuu ku jiro verbka ficilka ama oo ku jiro in aada isku bedelayso in eedana isku bedelayso tusaale ahaan eeda caadiga ah mar kaleetood oo waxaa jirto isku bedelayso oo tusaale ahaan lesson oo kale ka mid ah oo ah akhrinta ish lese aniga waa akhrinaya du liest adiga waa akhrinaysa oo eedi caadiga ahayd isku bedeshay
سهي نقلة تدا كميدا أو داوشة أرجدا أما داوشة إيش سهي أنا جوان وجدا وأركايا دو سيست هذه جوا أركيسا أو أدي عادي ويحسكو بده شيء إيه وحكلا تدا كميدا أرج هدي أو كجرو فابكا أو هادو اسكو بدلايو umlaag EU isku bedelay tusaale ahaan laufen oo ah orodka ama socodka ich laufe aniga waa socda ama ordaya du läufst noqota meeshaan dhawaaqeedi waa isbedelaya qoraal ahaan waa isku bedelaya du läufst adiga waa soconaysaa ama waa cararaysaa waxaa galnaa marka nicht trennbare Verben iyo trennbare Verben verbabka aan kala go-in markay senteen isku jiraan iyo verbabka kala go-a markay senteen isku jiraan maxay yihiin marka verbab kala go-in jarmalka inta badan verbabka qaar waxaa kasoo hormaro prepositionaa kasoo hormaro qaarna waxaa kasoo hormaro waxyaabo laisku geegeeyo tusaale ahaan be oo kaleetodoo kale emb oo kaleetodoo kaleetod end ge ve te alles waxaa waaye verbab ficilo caadi ah oo aad taqaanay bay kasoo hormarayaan ficilka sida aa u taqaanay wuu iska bedelaya oo micno kaleetodoo yeelanaya tusaale ahaan du bezahlst die Rechnung caadi ahaan waxa waa meeshaan sahlan ay ahayd haddii aa u taqaanay sahlan oo ah bixinta be soo gasha ayadan oo isla sidii le ah du bezahlst die Rechnung waxaa bixinaysa Rechnung oo bida sahlanta kama go-ayso der Kurs beginnt am Montag koorsada waxay bilaabanaysaa isliinta ma kala go-ayso sidii ahaanaysaa ich empfehle das Steak waxaan kula talinayaa steak asna cuntid am steak asa kula talinaya die Firma entlässt viele Arbeiter kambaniga wuxuu burinayaa shaqaalooyin caadi ahaan ereyga wuxuu ka yimaaday entlassen ich erkläre die Grammatik waxaa sharxayaa grammarka oo ah ereyga asalkiisa erklären genießt die Freizeit wuxuu ku raaxaysanayaa waqtigiisa friiga ah oo ereyga wuxuu ka yimaaday genießen geedaas iyo niisintaas ma kala go-ayaan way isku xiran yihiin ich verstehe das Problem dhibkaas waa fahmaya verstehen oo ah fahmid vertaas kama go-ayso maxaa ku dhahaa inta kaleetood ee verbka way isku dhegan yihiin Ali vergisst die Hausaufgaben Ali wuxuu ilaabay Hausaufgaben oo ah vergessen Sarah verdient viel Geld naagta la yidhahdo Sarah waxay qaadataa lacag tiro badan wir zerreißen die Notiz waxaa jarjaraynaa notiska warqadda meesha ku dhegan zerreißen marka intaan dhan waxaa marka intaa markuu ereyga ka hormaro oo meesha ku qoran ereyga sidiisu ahaanaya sentenceska ma kala go-ay laakiin qaybta kale ku fahmi doontaa markii ay kala go-aan ereyga in markuu trend baaqi yahay markii prepositionka sida up an auf aus ein mit her vor zu zurück ereyga oo verb ka hormaro wuu ka go-ayaa marka verbka intiisa kaleeto oo qadaal dambu ka imaanaya tusaale ahaan der Bus fährt in 10 Minuten abfahren oo ereyga ahaa asalkiisa hore verbka asalkiisa waxa waa abfahren marka abtaas bdaas way ka go-day inta kaleetood oo verbka ahaa der Bus fährt baska wuxuu baxayaa in 10 Minuten 10 daqiiqo gudaheedu baxaya baska kreuzt die richtige Antwort an way kala go-een ankreuzen oo ahaa ereyga asalkiisa ah laakiin wuu ka go-ayaa hadhow sentenceska markii aad jumlada gelinaysid laakiin wuu ka go-ayaa markii aad verbka jumlada gelinaysid kreuzt wuxuu xariiqay die Antwort kreuzt wuxuu xariiqay die richtige Antwort an jawaabta saxan ayuu xariiqay steht 7 Uhr auf stehen waa verbka caadi ahaan laakiin wuu kala go-a hadirtaan auf stehen laba meelo kala imaanaan steht wuxuu soo istaagayaa 7 Uhr auf oo macnaheedu in isku yahay wuxuu kacaa todobada ich steige in Frankfurt aus waxaan kaga deganayaa Frankfurt ereyga asalka ah wuxuu waaye aussteigen oo kadegida ah markaa tareenka ama baska deganaysa der Zug kommt 20:30 Uhr an tareenka wuxuu imaanayaa 30 daqiiqo oo macnaheedu yahay ankommen asalka verbka waxa waaye ankommen oo ah imaashada waqtigu imaanaya tareenka ich lade Ahmed ins Kino ein Ahmed waxaan ku casuumayaa kinoga shaleemadan ku casuumayaa Ahmed oo macnaheedu yahay einladen ereyga asalkiisa wuxuu ahaa einladen Siemens company leedahay stellen waxay soo saaraan computer haya
كمبيوتر soo saaraan qoladan Siemens la yiraahdo herstellen oo kiimada ereyga asalkiisa hore oo ah soo saarid marka wax soo saaraysa die studenten ardayda liist waxay akhrinaysaa das referaat voor waxay soo jeedinaysaa referaadkay soo jeedinaysaa oo asalkiisa ah voorlezen oo ah inaa wax akhrisid wax meel ku yaalin akhrisid en du machst die Tür zu irida xiraysaa zu machen is irida xiritaanka waaye laakiin markii oo verbka sentenska gelinaysid waa kala go-aya gibt das Buch zurück buugaas dib u soo celinaya zurückgeben marka intaan meesha ku qoran haddii aad ku aragtid inay verbka horeyaan waxaa isku daydaa inaad qaybta horetood aad gelisid qaybta hore ee verbka inta kaletood soo hartana sentenska dhammaadkiisa aad gelisid tusaaleaan abfahren fährt ab kreuzt an also ankreuzen steht auf aufstehen steigen aussteigen marka qaybta koowaad wuxuu galayaa qaybta dambe wuxuu galayaa qaybta koowaad qaybta dambe oo intaan ku qorana wuxuu imaanayaa mar walba qaybta dambe haddii aad wax qalad ku aragtay ama haddii aad su'aal qabto ila soo xiriiri kartaa inta kulankan kale xiiso badan ku kulmi doono anigoo qaliiji ah fi amaan illah